saacad waa 4:00 galabnimo 15 bisha May 2020 waxaanu ka koobanahay bahda warfidyanada telefishinka caalamiga ee Gobonimo waxaanu yar dhaafnay masalaha magaalada Hargeysa waxaanu u jeeysanahay dhinaca Isha Goobta oo qiyaastii 17 kilomitir dhinaca koonfureed ka xigta magaalada Hargeysa waa goob aad u qurux badan oo dad badan ay ku qaataan waqtiyadooda xilliga ay firaaqada leeyihiin iyagoo inta badan dhalinyaro boqolaal ahi ay ku afuraan maalin kasta Isha Goobta haddaba qaar ka mid ah suxufiyiinta warbaahinta Gobonimo ayaa goobta barnaamijyadooda ku qabtay suxufi Mustafa Cabdi Qarbooshi oo ka mid ah barnaamij soo saarayaasha ayaa wareysi la yeeshay Dr. Cabdixamiid Bustaale qaar ka mid ah hawlwadeennada Gobonimo TV oo isla goobta ka hadlay ayaa yiri bismillahir rahmaanir rahiim daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan aad ayaan salaameynaa maanta waxaan ku sugannahay Isha Goobta waa anaga iyo kooxdii dhan Gobonimo TV oo maanta halkan ugu soo baxnay inaan sameysano aftir wanaagsan iyo saan dadka isku barno daawadayaasha waxaan leenahay waxaan soo wadnaa barnaamijyo tayo leh iyo sidoo kale warar la hubo oo bulshada saameyn ku leh dabcan waxaan leenahay daawadayaasheeda waxaan iga fadhinaa intan iyo in ka badanba inaad inii keenay idinka السلام عليكم تي في Gobonimo oo ku soo biiray bahda warbaahinta Soomaaliland iyo Soomaaliya dhageystayaasha daawashada waxaan u soo bandhigi doonaa barnaamijyo heer sare ah oo si fiican loo soo tafatiray oo ku salaysnayn caadifada iyo in viewers ama lagu helo marka waxaan jeclaan lahayn daawashada inay si share gareeyaan oo nala socdaan oo barnaamijyo waqtigooda ay qortaan aan soo dayno oo barnaamijyo badan ku xiriir la leh bulshada magaranaysa oo aan u badnayn siyaasadda ku jiraysa laakiin dabcan waxaan wax bulshada manfac u leh عليكم داود يا رسالة ركتان ورتمرك ورمج عيق وأنا جوا عتقن خضر الجاح كم إذا هالوضع ندى تيفيق Gobonimo ريبورتري إديتر سادة ركتان وحنو شوقنا ما أنتي شو جبك ونقص مثلاً أفتير ونكسن داود يا حطية إذا هرنا برانو وحن رجيني ناين هذه مكان براتان وحنو دي سو قد بيتونا الرواية ده حساب بدن برنامجيو ورر سوغان يولي بأرمي بالشدة وحن شعلنا يعطيه يوتيوب نقطنا إن الناس سبسكرايبتان فلو إذا إن الناس صارتن بيتشكا وحن رجينا إن واحد بدن أنا دي سو كرينو أيضا كبران تيفية ظهره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتوا وعاونا سنداود يا هات وحنا قصورنا إيشو جبكا إن وحنا هيوقف صار برنامج كذا تلفزيون كعالم Gobonimo TV وهذه تروح أو تاجي سوي قن لها دي سو كرينا وحيا بحسب بدن أو برشة هراء أرق TV وهذه تروح أو تاجي هاي سوي دي سو كرينا وحيا بين هراء برشة أرق. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبض وديال waxaan ku soo weenahay Isha Goobka waxaanu nahay bahda Gobonimo TV anagoo isku nimi kulana afraad kaasi oo doonay in kula wadaagno barnaamijyo kala duwan oo ugu soo bandhigi doono bulshada qaybaheeda kala duwan waxaanu noqon doonaa telefishin u adeega bulshada Soomaaliyeed uguna adeega baahiyaha jira isla markaana ka kaaba xogaha ay u baahan yihiin haday noqdo dhacdooyinka caalamka iyo kuwa maalin lahaaba waxaan ahay soo saarayaasha barnaamijyada kamid ah Gobonimo TV magacayga Mustafa Cabdi Qarbooshi galab wanaagsan waxaanu joognaa bariga magaalada Hargeysa meesha lagu magacaabo Isha Goobka oo afar wadaad ku sameeysanay annaga iyo TV-ga hadda dhawaan soo gali doona Gobonimo TV waxaan runtii idin rajaynaynaa khayr fara badan barnaamijka waxaad runtii kala socon doontaan barnaamijyo fara badan oo kala duwan oo arrimaha bulshada taabanaya kuna sanaysan runtii cilmi baadhis iyo wax macno leh waxaynu runtii rajaynaynaa inaanu wax fara badan oo qiimo leh adnaga daawo doontaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داودياسha sheefta iyo qadarinta midnow waa anagii bahda Gobonimo oo galabta ku sugan goobtan lagu magacaabo Isha Goobta waxaan idin leenahay wax ku xaysiista goobihiina ganacsi saad u heshaan mar walba macaamiil badan sidoo kale waxaan idin leenahay Gobonimo TV ka baaqan maayo beelayaanu ka helin mar walba siyaasi Cabdixamiid Bustaale oo ka mid ah siyaasiyiinta iyo saraakiisha xisbiga muxaafadka kulmiye oo kelmad halkan ka yiri ayaa waxa uu yiri بسم الله الرحمن الرحيم runtii sharaf weyn bay tahay inaan maanteedii kala soo qayb galo bahda Gobonimo TV afur wadareedkan TV ku sameystay xaruntan goobta Isha Goobta la yiraahdo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay TV-ga waa soo dhaweynaynaa waxaan ku rajaynaynaa in noqdo TV bulshada ugu adeega baahiyaha gaarka ee taabanaya ay tabayaan arrimaha bulshada ka mid tahay falaqaynta siyaasadda ay ka mid tahay soo saarista hogaamiyayaal siyaasi ah oo u xor ah fikirkooda inuu TV u noqdo u dhaxa aad iyo aad u mahadsantihiin mar labaad waan ku faraxsanahay soo dhaweynta iyo qadarinta aad noo sameyseen kala soo qayb galno oo mahadsantihiin